beentaa dusha lagaga saaray aan dib ugu celiyo arrimahaas anigoo ka hortegaya ayaan maanta ku qasbanaaday lacagtan madax furashada inaan siiyo si aan wiilkayga meeshan ogala baxo mudana artool maxaad ku hadlaysaa haddii aadan cadaaladda doonayn aadan doonayn inankaaga in la maxkamadeeyo awal rajo been innaga maxaad inoo gelisay xaqiiqada maxaad inoogu sheegi weyda noqonsanay ibligaad hore ayaan waxaan ku yidhi wiilkayga aniga ayaa cadaaladda hor keeni doona adigana arrintaas ayada awaad diidda oo waxaad tidhi kuma qanacsani anigana ha ka yaabin wiilkayga inaan sukuud geeyo hadda eeg dadkan inankooda wuxuu sameeyey dooni maa in ciqaabtiisa inay marsiyaan ayagaabuu horseeday waxay odhanayaan wax dembi uu leeyahay ma jiro soo hadal hadda intaad doonaysidna sheego intaad sheeganayda in ka badan anigaa ku siinaya inankaaga qor igu soo wareeji كون كيلو ذهب way dhan tahay waanan oggolaaday laakiin iminka kuma sii karayo ما هي ما حكى وضع micnahayga wax kale maadaama intaa leeg iminka anagu gacanta kuma hayo waqti xadirkaana ciidankayga ima keeni karayaan ilaa dahabkan aan ka helayna wada sugaysaan ibligaad hadalkeedu waa maqasho ma adigan kaa war sugaynaa marka soo dee waxaa hayso هاي maxaa qaldan maxaa kugu dhaca hooy sidee wax u jiraan ii sheeg hooy gabadheeda walwalka badan iska dhaf waan fiicnaanayaa aniga gabadheeda xanuunkan in fara badan ayuu aniga i soo haayay qalbigoo dhanna way gubanayaa kurbada ugu badan qofka i gelina waa wiilkayga gundoos hooy ilaa goormay ayaa sidaan ahayd hadda kahor misku aragtay gabadheeda xanuunka xilligu igu bilaawda ma aysan dhoweyn haddii aan kuu sharaxana waxay ahayd xilliguu geeriyooday ninkayga saleebaan shaah wakhtigaas ilaa ay haddana xanuunka wuu i haayaa hooy toor artug ayaa ku wacaa inaad saa samayso looma baahno hooy sankayga dhiig ayaa ku socotay toorkiina u wacni waa ku qasbanaha sidaan inuu kugu fiirsado maahan haddii kale xaaladaadu way sii xumaanaysaa toor artug waa inaa u wacaa arrinka inaad cod u sheegto ma rabo wiilkayga aartol hadda tiisa ayaa haysata mana rabo tayada inaan ugu daro tiisa ayaa coslaysa gabadheeda xilliga ee munaasibka tahay anigaa digtoorka u tagaayo wax walba u sheegaayo xafsa xaaladdeeda waad fahmi kartaa soo maaha arrinkan cidnaha u sheegin